inay marka ugu horeysaba ay dhahaan dabdamis iyo dhul dabdamis aan u baahano oo dawladdu leedahay. dawladdu horta waxay leedahay ma jiraan marka ugu horeysa. dadka dawladdu wax ka yaqaana haddii dawladba qofku wax ka yaqaano dawladdu waxay leedahay male. dawladda shacabka iska leh ayada. shacabka wixii uu rabo waa inay dawladdu yeeshaa. dawladdu shacabkay u shaqaysaa. dhul dawlad ma yeelan karto. arrimahaas waa arrimihii waagii muxuu ahaa maxamed siyaad barre oo maaragtay dictatornimada iyo hawshaas lagu jiray oo nin uu maamulka iska haystay Soomaaliya. laakiin hadda maadaama dimuqraadiyad la yahay, dimuqraadiyaddu dawladda shacabka iska leh. waayo dadkan madaxda sheeganayo dhan kulligood waa inay dawladda waa inay shacab ka dambeeyaan. shacabka biila ana canshuurtooda maartay ay mushaar ku helaan. waa fan Soomaa ayaga iskale ayaga u shaqeeyaan. waa shaqaalaha shacabka waay. marka dawlad wax iska leh horta ma jirto marka ugu horeysa. midda labaad waxa waaye dabdamiskan horta la sheegayo sidiisaba. anu waxaan maraan ku dhasho ku soo koray. dabdamiskan la sheegayo wax ka jira iyo meeshaas dabdamis ahaa jirtay ma jirto. dhulkaas dhul wuxuuba ahaaba iska bannaan oo wax maaragtay ii sheegtaba aan la arag baxda. dhul iska bannaan u ahaa. dabdamiska waagii waddanku fiicnaa wuxuu ku yaalay magaalada dhex bartamaheeda ku yaalay. halkaasuu ku yaalay xerada dabdamiska ay ku taallay. marka dabdamiskan hadda la sheegayo wax maaragtay ii sheeg jiraba maaha. waa wax dhallinyaradan hadda maaragtay dhalatay 90kii kadib lagu marin habaabinayo. runtii ma aqaan muddo ka horna maba jirinba. muddo ka hor wax dabdamis halkaas ku hadlaaya ma jirin. meel degan yahay. marka dabdamiska iskale iyo dawladda iskale waxaas wax beena oo waxa waaye la rabo in dadka magaalada degan madaxa la isu geliyo. oo haddaba ay bilaabatay oo ah anigaa iskale dhulka iyo anaa dhulka iskale iyo waxa samaynayana waa saddexdaa nin waaye. runtii wax kale ma. saddexda nin oo xasan sheekh faraha u geliyay nabadgelyada magaalada hortood ma jirin. ninku wuxuu yiri dibiga naas adag iyo weedha maxaa kulmiyay. hortood ma aysan jirin waxaas. maalintay yimaadeen waaye oo ninka xunka afka jajaban oo muxuu ahaa ninka afka jajaban oo muxuu ahaa laga maartay la leeyahay afhayeenka booliska la leeyahay oo hadda dhow uusan maaqan wax ku soo celiyay inuu maaqan runtii. waa hadda dhow waxa waaye waa laga bedelay nin oday oo qiyaara lagu bedelay. asaga waxa loogu soo celiyay markii nimankan ay yimaadeen lagu soo celiyay meesha kulay saan u jeclahay. ayadoo cidna la ogeysiin oo waxba la kala wareejin oo marka waxaan aad uga xanaaqay si ula hadlay ninka wariyaha oo Somali Cable yarka wariyaha Somali Cable markuu wareysanay u dhahay maadaama meesha degan adama meesha degan maxaa saa u leedahay maxaa adama meesha degan warad maxaa ka galay deganaanta adoo meesha degan adoo eelaaya tahay meesha maxaa ku leedahay shuqul ku leedahay ina ka hadashaba maahe. drone la keenaa diyaarada la keenaa drone xagee Soomaali ka haysta. Soomaali ma drone haysta. drone daysa drone daysa Ethiopia isaga xilli Soomaaliya drone iyo wax u dhow Soomaali ma haysto. askari Soomaaliyeed oo macnaa booliisna drone lama siinayo. waa mas'uul ma maahe. ninkan wuxuu ku hadlaa u jeedaa wuxuu leeyahay drone dadka lagu leynayo drone dadkii dhamay oo meesha deganay oo soo dool u yimid u leeyahay waa leynayo. wax soconaa ma taas. waa akhlaaq xun yahay runtii aad u akhlaaq xun yahay. waxa uu maleeyay inuu cunug ilma inuu yahay umaleeyay sabab carab la yahay qofka weyn. carab la'aana ba maaragtay daas ku jira hadalkiisa hata maruu si fiican loo fahmo. kaas maaragtay ii sheeg hadallada uu ku hadlay hadalla qaldan aad u qaldan yahay. marka waxa waaye waxaasna waxa keenaya waxa waa nimankan maaragtay ii sheeg saddexdan nin oo haddaan sheegay meesha inay inta fadhiistaan mushaar iska qaataan rabaan wax ay ka qabanayaan
ma jirto sababtoo ah waxa waaye meeshooda waa u nabad iyaga soo ma meelay ka yimaadeen waa u nabad ninna puntland uu ka yimid puntland waa nabad wax dhiba kama jiraan ninna wuxuu ka yimid gado iyo jubbada hoose wax dhiba kama jiraan kismaayo ka yimid wax dhiba kama jiraan laakiin meesha la rabay in la hagaajiyo oo caasimadii iyo indhihii caalamka maaragtay iyo fiirinayeen magaalada muqdisho si fiican nabadeedu maaragtay u hagaagtay meel fiican ay maraysay hadda waxa waaye nimankan wax ay ka qabanayeen male horta shaqo qabanayeen meel iska fadhiisanayeen sidoo shirkooda iska qaadanayeen wax ay sameynayaan ma jirto magaaladina hadda waa dhibaato ku bilaabatay waxa waaye waa maaragtay dadkiyaaba maaragtay muxuu ahaa madaxa isku la jira waxa keenana fidna kulli cindi geel ayaga waa fidna kulli cindi ayaga waa runtii ma fahantamoo marka waxa waaye xasan sheekh waxa la dhahaa ingiriiska if it's not broke why fix it haddaysan dhibaata jirinba waxa dadka u kala bedelayso maxay tahay mideeda kale qofka naxa u dhib adliist oo degaanka ama degaanka maaragtay isha ka naxaya u dhib laakiin dad dool ku yimid inuu u dhibo maahan qalad ah marka amnigiyaa xumaaday waxa waaye dowladnimadiisa qilqiilay ku jirtaa runtii wixii farmaajo iyo shariif sheekh axmed ama sheekh shariif dadku si u yaqaanaan maaragtay san ay sheegayeen